Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta waa idin salaam meel walbo adduunka aad ka joogtaan. Kusoo dhawaada cashiradeena. Cashirkan waxaan ku sharxi doonaa Windows Vista. Fadlan haddaan nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena Khaybar channel. Fadlan haddaan nagu cusub tahay subscribe saar. Video haddaad ka hesheen like saar. Insha Allah cashirka ayaan bilaabeynaa. Computerka hadda wuu dansan yahay. Waxaan rabnaa inaan ku shubno Windows Vista marka warayso computerka ayaan daarina computer marka daan bootkaaga meesha uu yahay riixanaysaa ani bootkayga waa F12 marka sidan aad joogtid waxaa laga maarmaan ah inaad soo gelisid ajalka uu window ku keedsan halka windowgaaga uu ku jiro ajalka. Okay, marka ajalka ayaan gelinaynaa computerka. Marka ajalka markaan gelino waxaan halkan CD/DVD ayaa inta ku leenahay arrowga ayaad ka soconaysaa. Arrowga falaaraha ayaad ka soconaysaa insha Allah. Marka halkaas aad joogtid waxaan leedahay enter level press any key ayuu ku leeyahay waxaad aad doontid ayaad riixanaysaa. Okay, marka computerka uu noo soo kacaya window is loading files. Windows Vista wuxuu soo baxay taariikhdu markii ay ahayd January 3 2007. January 3 2007 ayaa la soo sii daayay Windows Vista. waxaa Soomaalida haddaan nahanay waxaan u maleynaa Windows 7 inuu 2007 soo baxay, laakiin Windows 7 wuxuu soo baxay 21 October 2009 ayuu soo baxay. 21 October 2009 ayuu soo baxay Windows 7. Windows Vista wuxuu soo baxay 2007 bishii January 3 ayuu soo baxay. Marka Windows Vista waxba kagama duwan Windows-yada kale markii lagu install gareynayo ama lagu shubayo waxba kagama duwano. waa isku mid Windows-yada markii lagu shubayo wax yar ayay ku kala duwan yihiin. Okay, hadduu qaabkan kugu soo baxo waa Windows Vista waan la hubaa. markaas ka bacdi wuxuu ku soo saarayaa sidan Windows 7 kana sidan uu ku soo saarayaa Windows 10 kana sidan ayuu ku soo saarayaa. Windows-yada Windows 7 ka iyo Windows Vista waxba kuma kala duwan wax yar ay la dheer inta halkan luqadaha ayaad ka soo dooranaysaa luqadda aad rabtid ayaad ka soo dooranaysaa kadibna waxaad leedahay next ayaa leedahay. Okay, next ayaa kali ku siinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa install now. Okay, install now marka daadid please wait ayuu ku leeyahay markuu raadinayaa. Okay, markuu sidan ku soo saaro Windows 7 kana sidan ayuu ku soo saarayaa. Windows 7 ka iyo Windows 8 kana waa isku nooc sidan ayuu ku soo saarayaa. Okay, Windows 7 cashirka Windows 7 ayaa noo dhiman inaan sharaxno. Windows 10 hore ugu soo hadalnay iyo Windows Vista haddaan ka hadlayna. Okay, halkan ayaa check saaraysaa accept ayaa check saaraysaa kadibna waxaa leedahay next ayaa leedahay kadibna waxaad dooranaysaa asigaaba ku cadeeyay custom halka kore lama dooran karo Windows-yada kale laakiin waa dooranaysaa laakiin laguma talagelin waxaa custom ayaad dooranaysaa halkaas ayaa kali ku siinaysaa. Okay, marka halkaas marka kali ku siinaysaa wuxuu ku keenayaa meesha hard disk-ka ayuu ku keenayaa. Halkan ayaad kali siinaysaa markuu saan uu kugu soo saaro waxaa la rabaa inaad local disk sida inaad format gareysid. Windows-gii hore ayaa ku jiro Windows-ga cusub si aad u shubtid aad rabtid waa kii hore waa inaad format gareysid. Okay, marka tan hadday tahay tan lama format garay waa Windows waa local disk-gii kale oo xogtaada aad ku keysanaysay waay. halkan ayaan dooranaynaa. Okay, labadaba aad dooran kartaa. Okay, halkan markaad ku dhufatid markii aad wax format gareynaysid kan ayaad dooranaysaa. midka kore waa meesha Windows ku jiro adiga taqaanid halka Windows sida iyo diida meesha uu kugu keedsan yahay adiga taqaanid. marka waxaa loo baahan yahay inuu sida yahay computerada waa sida ay u wada badan yihiin laakiin waa laga bedeli karaa sida iyo d waa loo bedeli karaa a loo bedeli karaa b loo bedeli karaa. marka
halkaas markaa click aad siisid, halkaas markaa click aad siisid waxaad dooranaysaa format ayaad dooranaysaa. format markaad dooratid format ayaa click ku siinaysaa, kadib waxaad leedahay okay ayaa leedahay. if you format waa muhiim inaad inta akhrisid, laakiin video ayaan soo koobeynaa si uusan waqtiga noogu badanin. okay leena okay markuu wuu format gareey waa format waa 19 GB 19.8 GB. okay marka waxaan leenahay next markaan dhahno halkan copy window files waa waxa waa 1 second waa 1 minute 100, laakiin 2 3 4 afarta kala soo hartay midda koo hadda eber uu ku taagan yahay ayaa cabaar la sugayaa 30 minute asiga qaadanayo. intan kalena waxa waaye waa 1 minute oo kale iyo wax ka yar, 1 minute 5 daqiiqo intooda. okay marka intii uu ka dhameynayo waan isku soo laaban doonaa insha Allah. okay marka computerkeena uu dhameeyay 9 ayuu marayaa 100 inuu gaaro 1 minute ka harsan. okay marka 30 daqiiqo aan sheegaynay in ka yar ayuu ku dhameeyay. hadda install update marka computerka restart ayuu isku diraya, wuu soo kacayaa anagoona taabanaynin. lama rabo inaad taabatid, computerka asiga isdaminaya asigana soo kacaya. okay marka computerka hadda ayuu restart isku darayaa. okay halkan click waa siin kartaa, restart waa dhihi kartaa, laakiin ilaa 10 second ayuu ku qabanayaa. ama adiga click siin karo ama asiga ayaa restart isku diraya. okay marka hadda computerkii restart markuu isku diro asiga ayaa soo kacaya. okay hadda computerka markuu soo kacay meeshiisii ayuu ka bilaabayaa. press any key midna ma dhehaysid. window 10 iyo window waxa soo saara visitor. marka window visitor asiga ayaa isla markay enter isdhahay, laakiin adiga ma taabanaysid. okay computerada intooda badan marmar way soo qabtaan check file system. okay marka wax yar ayaan sugaynaa inta uu ka dhameynayo. okay marka uu dhameeyay hadda computerka windowgii meeshiisii ayuu kasii bilaabayaa. okay marka hadda weli meeshiisii ayuu kasii wadaa. mar kale ayuu haddana restart isku dirayaa, computerka sidaa soo kicinaya haddana. okay marka hadda computerkii okay marka computerka restart ayuu isku diray, asiga ayaa hadda soo kacaya. press any key soo qora, laakiin press any key lama taabanayo. press any key uu soo qorayaa laakiin lama taabto. fadlan mar kale ku celi window visitor wuxuu soo baxay January 30keeda 2007. window 7 waxaan u maleynaa window 7 inuu soo baxay 2007 laakiin ma soo bixin. window 7 wuxuu soo baxay October 21 October 2009 ayuu window 7 soo baxay. window visitor wuxuu soo baxay 2007 January 30keeda. October 21keeda 2009 window 7 ayaa soo baxay. markuu computerka soo kacay sidan ayuu soo qabtay. tab username marka magacaaga ayaad u bixinaysaa, marka waxaad rabtid ayaad ku qoranaysaa. haddii computerka shirkad ama aad ka soo gadatid ama dad kale aad ka soo gadatid oo magac kale ku qoran yahay, si looga bedelo insha Allah waa idin barayaa sigana. okay marka magacayga ayaan ku qorayaa. okay inta waxaad gelinaysaa passwordka. okay password ayaan gelinaa.
mar kale ayaad waxaad inta mar kale ma gelinaysid, halkan ayaa mar kale gelinaysaa. Okay, afwan, halkan mar kale ayaad gelinaysaa. halkan hinti waxa la yiraahdo ayaa loo sameeyaa kombiyuutarada, ama waan ka gudbi karnaa, laakiin hinti waad u sameysan kartaa. Okay, channelkeena magaciisa ayuu bixinayna Qaybar. Okay, halkan next ayaad leedahay. sawirka waa iska bedeli kartaa, sawirka halkan saan waa iska bedeli kartaa, noocan ayaad ku bedeli kartaa, noocan ayaad ku bedeli kartaa. Okay, mid ka rabtay ayaad ku bedeli kartaa. Okay, marka hadhow sawirkaaga inta waa saaran kartaa markuu computerka uu soo kacayo, sida loo saartana asigana waa idin bari doona insha Allah. Hadda waxaan leenahay next ayaan dooranaynaa. Okay, qaybta hoose ayaan dooranaynaa hadeertaana. Okay, date-ka ayaan saxaynaa, taariikhda waa saxaysaa. Okay, halkan ayaad klik siinaysaa, marka next ayaad klik siinaysaa. Thank you ayaa lagu yiri. Okay, marka waxay raayaan suuqina inta computerka waliba mar kale ayuu restart isku dirayaa. Okay, hadda waxaan leenahay start ayaa leenahay. computerka mar kale ayuu restart isku dirayaa, wuuna soo kacayaa. markaas passwordka ayaa ka furaysaa, desktop-ka ayuu ku geyn doonaa insha Allah. Okay, marka intuusan restart isku dirin, san markuu ku soo qabto wax yar ayaa u kaadinaysaa, markaas ka bacdi ayuu restart isku dirayaa computerka. Okay, marka hadda restart muusan isku dirin, Windows 7 Windows Vista Windows 7ka ayaa restart isku diro. Afwan, marka hadda waxaad gashanaysaa passwordkaaga. hadda uu isku diray restart, hadda ayuu restart isku diray, passwordka geli intaan dhahay restart isku diray. Okay, hadda computerka uu soo kacay, hadda computerkii uu soo kacay. Hadda passwordka ayaan ka furaynaa. next enter waa dhihi kartaa, ama filaartan waa taaban kartaa, waa isku mid. Afwan, okay, welcome, preparing your desktop. ku yiri waxaa la diyaarinayaa desktopkaaga ayaa la diyaarinayaa. Okay, marka hadda computerkii uu soo kacay, halkan waxaa noo yaala recycle bin oo kaliya. marka waxaan u baahannahay inaan soo gelino computer networking iyo control banner inaan soo gelino ayaan u baahannahay. halkan ayaad klik siinaysaa, kadib waxaad klik siinaysaa change desktop. check ayaa saaraysaa, computer check saaraysaa, user check saaraysaa, network check saaraysaa, control panel check saaraysaa, apply ayaa leedahay, kadibna okay ayaa leedahay. Okay, marka waa ka baxaysaa, halkan right click ayaad ku leedahay. yariis waaweyn hadda waxaa ka dhigaysaa yariis ayaad ka dhigaysaa. Okay, yariis ayaa ka dhigaysaa. marka sidan uu yahay, intaan xataa waad kasii yeelan kartaa, wax macnaa ma lahan. fadlan hadda video ka heshay, like saar, wixii fikradeena comment inoogu soo gudbi. haddaad channelkeena ku cusub tahayna subscribe saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.